السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعشر كيني صدحية طمناد جرافيك ديساينكا. عشر كيني ساكا waxaan ku qaadan doonaa insha Allah taala qaabka loo dhiso business card ama cardska qaabka loo dhiso. waxaanu dhisi doonaa insha Allah taala business card kan inoo muuqda inagoo markaasi ku bilaabi doono sidaynu wada naqaano business card ku wuxuu leeyahay laba weji front ah oo waxa weeye wajahada hore ah oo la soo saaro loogooyinka iyo waxyaabaha iyo qayb back ah oo markaasi qofka magaciisa ku qaran yihiin iyo waxa weeye locationkii meherada iyo lambarkii meherada iyo waxa weeye gmailkii meherada iyo website-kii meherada. waxaanu sameyn doonaa oo hordhisi doonaa insha Allah qaybtan frontiga ah ee hore ama wajahada hore ee la soo saarayo markaasi loogada ganacsigaaga. waxaanu sameyn doonaa insha Allah waxaan tagi doonaa Photoshop-kii warqad A4 oo caadi ah aynu soo furan doonaa insha Allah. kadib waxaanu ku dhufan doonaa okay. warqadan ayaynu hadaba yareysan doonaa waxaanu ka soo reebi doonaa inta in leeg ayaynu ka soo reebi doonaa insha Allah. inta kale oo iska goynayna aan tagi doonaa meeshan ay ku qoran tahay layers qufulka ayaan horta ka jari doonaa. kadib waxaan tagi doonaa halkan ay ku qoran tahay crop taas ayaan soo wadi doonaa insha Allah. saasaynu u soo wadi doonaa kala barka ayaan haddana xagan ka soo wadi doonaa markaan geeska keeno. marka warqadii A4 tahay geeskaas oo kaliya ayaan kala soo hadhnaa. hadhow marka la soo saarayo waxa laga yaabaa warqadaasi in waxa weeye afar xabo ku soo saarto qaybtii frontiga ahayd iyo qaybtii backta inta halkan taalo mid kalena halkan mid halkan ilaa afar xabo inaad hadhow ku soo saarto. kadib okay baan leeyahay waynu soo dhaweysanaynaa markaas waxaanu sameyn doonaa hadaba tan ayaynu design gareyn doonaa insha Allah inagoo design-kan ku bilaabi doona insha Allah taala. design-kan saddex shay ayuu ka kooban yahay shape-ka hoose iyo shape-kan iyo waxa weeye kan. kadibna loogada ayaa la soo saari doonaa. waxaanu dhisi doonaa marka u horeysa horta kan inaynu color siino laftigiisa background-ka dambe inaan color siino. waxaan tagi doonaa FX kadibna color baynu siin colorkaas aynu ku dhufan. kadib waxaanu siin doonaa insha Allah si aynu dhisno huruud ayaynu siin doonaa insha Allah. ka hooseeya waa huruud baan leenahay huruud waadixa oo aad u cad ayaynu sameyn doonaa. huruudii markaan siino okay baan leenahay. waxaan kaloo sameyn doonaa insha Allah markaasi inaan shape-kan kale ee waxa weeye madow aynu soo qaadano kadibna aanu dib celino. rectangle toolkii ayaynu saaleenahay kadib halkaas ayaan kaga soo qaban kadibna bartaasi ayaynu ku joojin. kadib stroke aynu ka xidhi filkana color baan siin markaasi yar madow xigeena aan madow caadiyana ahayn oo madow khafiifa ah. kadib waxaan sameyn doonaa inaan warabkii geliyo afkan ayaan soo yar celin afkanna sidaas ayaan soo yar celin. kadibna tigta ayaan ku dhufan doonaa. intaa markaan design gareeyay waxaan saari doonaa insha Allah qaybtan goobadan weyn oo markaasi aan shadow ku sameyn doono harka yar ee ka soo go'aysa. tan polygon toolka ayaan soo dooran doonaa halkaas aan ku dhufan doonaa. kadib halkaas aad ku qoran doontaa 6 slides kadibna okay baad leedahay. kadib qaabkaas oo kale ku soo baxay stroke aad ka xidhaysaa. sidoo kale waxaad sameynaysaa filkana color khafiifa ayaad siin doontaa insha Allah. dabadna shiftida intaad qabato ayaad weyneyn doontaa bartanka ku soo aadi waliba si yar weynay baan leenahay. in yar ayaan yareyn doonaa insha Allah. bartankana waa ku soo aadin doonaa.
okay baan leeyahay. kadib saa intaan u doorto ayaan shadow yar u samayn doonaa, fx drop shadow. kadib xagga ayaan hadhowga yeeli doonaa si uu wada muuqdo wixii timingka wada jeedaa oo yar muuqday. aad baan ugu yara dari doonaa insha allah. kani waa ka bartanka ku aadinaya shadowga. yar aan ka dhimo, khafiifna aan ka yar dhigo. markastaado hadda ayuu ugu qurux badan yahay ayaad waxa weeye u dayn doontaa insha allah. halkana waa in yar baad dhimaysaa oo khafiif ka dhigaysaa. kan in yar ku dar baan leenahay. kadibna okay baan leeyahay. markaas halkan waliba in yar sare u yar qaad, in yar oo aan badnayn. kadib in yar ku soo dar, yar ballaadhi. markastaada hadda ayuu ugu qurux badan yahay ayaad ku dayn doontaa. hadda dhisaynkii waanu dhisayn garaynay oo kaa waxaan samayn doonaa markaasi inaan soo geliyo. hadda qaabkan oo kale ayuu inoogu dhisan yahay oo kaas shadowga yara dambe ayuu leeyahay. waxaanu samayn doonaa markaasi inaynu inkastaynu shadowga ku yaraynay xaggan dambe, haddaynu shadowga rabna inaan kusii darno, drop shadowgaynu tegi doonaa. kadib shadowga ayaan ku fidin doonaa, aada ugu fidin doonaa. sidoo kale waxaan filayaa inuu kani aada u yara weyn yahay. kan baynu aada u yara weyneyn isagana insha allah. kadibna bartanka ayaynu ku yara duway. intaa markaan dhammaystirno looga ayaynu soo dhigi doonaa halkan. marka loogada anigu insha allah kan baan soo qaado, kan baan saa usoo daraagarayn. looga ii diyaar garaysnayd ma jirto, laakiin loogooyinka mid ka mida ayaan soo qaadan doonaa insha allah oo ku soo baxaysa meeshana. kadib waxaan samayn doonaa inaan qoraalkan cad ama waxyaabahan cad oo png ka dhigo, qoraalkan ka baabi'iyo. sidaa u dooro loogada, kadibna halkan taa ugu hooseysa dooro. kadib kilig ku sii okaydhe, haddana kilig cadaankii ayay ka jaraysaa dhammaanteedba. bartankaynu kusoo yar aadin, waynu yarayn doonaana loogada insha allah. waa kaa marka loogada qaabka u quruxda badan ayaan iyadana soo dhignay. iminka loogadii iyo wixiiba waa ku dhammaystirnay. waxaan samaynaynaa markaasi inaan qoraalkan yar ku soo darno insha allah ee halkan dambe kaga qoran. waanu iska dayn karnaa oo dhib ma laha, laakiin waa ku soo daraynaa insha allah. tegastigan tegaya horizontal type tool baan ku dhufan doonaa halkaas. kadibna waxaan leeyahay somali educators ayaan ku qoray. waa kan waxaan samayn doonaa inaan markaasi rogo ayaan samayn doonaa. tii kalena qaabkan baan u rogi karaa oo dhib ma laha. saasay ahayd. kadib markay saas usoo yar xoodo ayaad intaad qaybta laftida qabato saa u rogaysaa. kadib halkan ayaan kusoo aadin doonaa insha allah. ama magaca waxa weeye ayaad ku qori doontaa adigu. marka anigu loogadan markaan yar eegay, loogadani magac ma lahayn, somali educators ayaan ula baxaa. intaasi waa intii hore ama frontigii hore ee waxa weeye dhisaynka insha allah. waxaa inoo dhiman inaynu markaasi dhisno qaybtan dambe. qaybtan dambena intii kale oo dhan ee dhisaynkaas oo kale hore oo dhan
waa iskaga mid sidun baa loo dhisayaa waxaa kusoo biira un qofka magaciisa iyo wuxuu title-kiisa sidoo kale location-kii meherada, lambarkii meherada, gmail-kii meherada, website-kii meherada, waxyaabahaas ayaad kusoo dari doontaa insha allah. casharka qaybtiisa labaad ayaynu kan ku dhigan doonaa insha allahu tacaala. marka waxaan samayn doonaa haddii alla ka dhigo inaan kaas ku joojino insha allah. sidii baanaad u save garaysan doontaa intaad tagto save file kadibna save as, kadibna aad tahdo png igu save garay baan leeyahay. kadib waxaan leeyahay hore card ayaan ka dhigtay, muusigana waa dhigtay, safean markaasi leeyahay. marka intaynu qaybta labaad u gudbi doonno insha allahu tacaala intaas ayaan ku joojinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.